بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada asxaabay meel kastoo aad joogtaan waa layligii taxanaha ahaa qaybtii saddexaad ee fasalka koontuuga cutubka lixaad meesiyada xoolaha ayaan ku eegaynaa layligan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koowaad marka waxay leedahay isku aadi ereyga iyo macnihiisa intaanan taa u gudbin layliga labaad halka kan buugga ka ah weydiimaha naqtiinka ah waxay baaga tegaysaa waa buugga 135 ilaa 138 inahaas ayaad ka eegaysaa buuggaaga markaad soo qaadatay muqarrarka aan sii lugayna fallaarta koowaad waxayna leedahay isku aadi ereyga iyo macnihiisa halkan waxaa inoo yaalla ereyadii oo 10 ah halkanna waxaa inoo yaalla weerihii ereyada ku saxan ee la rabay inaynu markaas ku aadino ama aynu isla dooranno haddii ilaahay yiraahdo waayahay agoon agab agas awsaar firdhad samaayo dhaqayo caraf dhoqol iyo afti waa 10 erey 10 erey waxaa laydinka rabaa 10 weerood inaynu ku aadino tusaale halkan maxayna ku qoran dhiil yar oo ilmaha caanaha loogu shubo halkan markaynu ka eegno maxay noqonaysaa dhiishaas lambar 9 waa dhoqol dhoqol marka waxaa la yiraahdaa ilmaha yaryarka ah dhiisha caanaha loogu shubo lambar labaad haddaynu soo qaadano maxay noqonaysaa markaas halkan waxaa ku qoran neef irmaan oo muddo badan la maalayo macnihii waa caana yareeye caanihiisa markaas yar caano badan lagama helo maxaa loo yaqaan markaa dhaqayo lambar 7 halkaas iyaduna ku dhacaysa lambarka 7aadna waxaynu dhignay meeshaas maxaa kuu soo haray markaa 10 god markaan laba ka isticmaalnay adeegsanay waxaa inoo soo haray 8daas god adiga la rabaa inaad markaa ka shaqayso adigoo labada dhinacba isku eegin aan sii lugayno qaybta ku xigtaa waxay ina leedahay goobo geli carafka saxda waxaa laydinka rabaa inaynu goobo gelino carafka saxda ah halkan lamarka koowaad waxaa la yidhi isbeddelka hawada oo keena baa layidhi kulayl iyo daruuro badan oo muujinaya saadaal roob marka cirka qaabkaas oo kale marka uu noqdo maxaa la yidhaahdaa lambaradan ayaad mid dooranaysa carafka waxaa ku qoran kajan halkana maxaa ku qoran kacdoon kar iyo kacaan midka saxda ah markaa la rabaa inaad adigu doorato lambarka labaad oo kale waxaa la yidhi biyo badan oo ceel kasoo burqanaya ceel bay kasoo burqanayaan waa biyo aad u fara badan maxay noqon karaan markaa il moqor mirif iyo maris adiga marka waxaa la rabaa intaa akhrido inaad mad ka doorato tusaale ahaan lambar 3 oo kale haddaynu tusaale ka bixino waxaa la yidhi dhibca biyo dhanaan ah oo qanjirada indhaha ka yimaada marka maxaa la yidhi ilmo waxaa la yidhi halkan iin halkan waxaa yidhi oohin halkan waxaa yidhi baroor maxay markaa noqonaysaa ilmo miya mise waa oohin waxay noqonaysaa markaa ilmo qofkaas waa ilmaynaya haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhaahdo waa ooyaya waa kala labo marka oohin iyo boohin baa isla macna ilmaduna waa dareeraha biyaha ee indhaha ka yimaada marka qofku uu xanuun dareemo waaye aan sii lugayno 10kaas erey marka waxaa la rabaa inaad mid walba ka doorato xabadda saxda waa 12 erey 12 lambar way 12kaas lambar su'aalahooda soo jawaab haddii ilaahay yiraahdo fallaarta saddexaad ardayda maxay noqonaysaa ku buuxi ereyga ku saxan hogta bannaan kadibna sharaxaa kadibna kadib markaad akhrido baa la yidhi erayadan bisha ku jira halkan waxaa layna siiyey erayo waxay ku jiraan bil ereyada bisha ku jira innagoo akhrinayna waa maxaa laydinka rabaa inaynu soo saaro ereyga hogta ku habboon halkan maxayna ku qoran baraar maxayna ku qoran aaran maxayna ku qoran biris ugeyd darmaan dhuko habeed iyo geenyo halkaana maxayna ku qoran sidoo kale 8 hog oo bannaan halkaana lambaradii aynu dhigi lahayn waa laydinka rabaa 1 2 3 4 5 6
7 8 8daasay ugu kala habboon yihiin waa u dhigaysaa tusaale haddii aynu mid tusaale ka bixinno waxa la yidhi waa kaadida geelu sibraha u yeesho sibraha waxaa la yidhahdaa lugaha dambe ee geela kaadida uu ku yeeshaa maxay noqonaysaa halkaas oo kale markaa eegtid waxaa la dhahayaa lambarkan ah habeed habeed baa markaa waxa soo qaadaysaa halkaasaa dhigaysaa maxay noqonaysaa habeed adigana maxaa lagaa rabaa inaad inta kale markaas saasoo kale aad uga jawaabtid hadii ilaahay yidhaahdo waay inta kale waxaa la rabaa inaad ka jawaabto kuwan akhri kuwaasna akhri midku ku habboon markaa ka jawaab waa layliga buugga marka foontuuga kuugu yaalla waayahay hortaad layligaaga dhammaysatana channelka like saar subscribe leh share leh si asxaabtaadana u gaaro adigana muuqaalada dambe oo cusub ay kugu soo dhacaan haadaa wabilaahi